raxiim. Waxaan salaamayaa marka ugu horreysa guud ahaan ummadda muslimka ah. gaar ahaan waxaan salaamayaa mujtamaca ummadda soomaaliyeed ee kasoo kala jeeda shantii dowlad deegaan ay soomaali maxmed kasoo kala jeeday. maya awalan soomaalida dowladda kenya, waxaan salaamayaa mar labaad soomaalida dowlad deegaanka etoobiya, waxaan salaamayaa oo kale soomaalida dowladda jabuuti, waxaan salaamayaa itaaliya soomaaliya, soomaalida koonfurta soomaaliya, waxaan salaamayaa khusuusiyan iyo khaas ahaanba british somaliland, shacbi weynaha jamhuuriyadda somalilan ayaan salaamayaa. waxaan doonayaa inaan halkan baaq degdega ama fariin sharciga iyo dastuurka iyo muwaadinnimada iyo maxay ahayday dhalashadan somaliland u dhashay aan ahay muwaadin somalilandari ay farayso. sababtoo ah waxa weeyaan waddanka in la wada ilaaliyo xaq baa maxay ahayday iyo waajibaba qof walba muwaadinaba ka saaran, mid banaanka jooga iyo mid xil haya iyo mid maxay ahayday in nabadda iyo amniga la wada ilaashado. oo haddii ay waxyaabo fara badan muuqdaan la isbaraarujiyo way fiicantay. beryahan dambe somalilan yadii baa kala dhammaan la oo isku mashquulshay oo isdaalisay oo isxiijisay oo gudaheegii isku baahday. koonfurtii soomaaliyana waxaa ka socda barakacaas oo ah qoladii argagixisada la oran jiray al-shabaabtii ayaa farabaas koonfurtii soomaaliya lagu haya. waxay raadsanayaan meelo ay maxay ahayday godad ay ka dhigtaan oo ay ku dhuuntaan oo ay u soo farxadaan oo ay soo galaan. markaa dowladda somalilan waa inay laamaha kala duwan ee amniga iyo ciidamada kala duwan ee qaranka iyo shacabka jamhuuriyadda somalilanba ay feejignaan degdega gelisaa. sababta oo ah horaa loo yiri nabad badani way ku hodaa. hadday nabaddu kugu fara badato oo aad isdhigato nabad badani way ku hodaa. ilaahi nabadda somalilan siiyey in loo mahad naqaano way fiicanta, in loo shukri naqaano way fiicanta, laakiinse feejignaan in lagu daro oo ma garanaysaa taxadir fara badan lagu daro oo mashquulkan siyaasadeed ee waddankii iyo ummaddii iyo dalkiiba la geliyeyna laga yaro baraarugo. sababta oo ah maxay ahayday bulshada somalilan qayb ka mid a hadday dhibaata gaadho de waxa weeyaan waa xanuun si loo wada dareemayo oo dhibaatadaasi ay wada damqayso shacabka jamhuuriyadda somalilan. markaa haddii ay somalilan guud ahaanteed ay tahay, hadday xukuumadda somalilan ay tahay, hadday shacabka somalilan kala duwan ay tahay, hadday dhalinyarada somalilan ee lagu mashquuliyo waxaanay dani ugu jirin ay tahayba, amniga jamhuuriyadda somalilan in layska kaashadaabaa fiican, in laamaha amniga lala shaqeeyaabaa fiican, in ciidamadeennu haddaanay shacabku garab siin ciidamada amniga jamhuuriyadda somalilan de waxa weeyaan garab la-aan ciidankeenu ma shaqayn karayaan. inkastoo ay ciidan somalilan ku filan yihiin ciidanka somalilan hadday laamaha kala duwan ee ciidanka ay yihiin, haddana se waxaa kasii qiimo badan shacabku inay bartaan qaabka ciidanka loola shaqeeyo, qaabka xogaha loogu gudbiyo, qaabka siraha loogu gudbiyo, qaabka faldambiyeedyadu meelahay ka dhacayaan ciidanka loola socodsiiyo, oo ay dadku wada noqdaan maxay ahayday wada askar noqdaan shacabku. sababta oo ah dhiigmiiratadii argagixisadii ahayd ee magaranaysaa balaayada ahayd ee magaranaysaa fanadka cawdbilaha ahayd ee wax lagaa cuudubilaysta ahayd koonfurtii waa laga soo barakicinaya. meelahay soo gelayaanee la saadaalinayo waxaa ka mid a buuraha sanaag ee ceergaabo, galgalo meesha la ydhaah oo ah maxay ahayday deegaan jamhuuriyadda somalilan ka tirsan. markaa waa inay dowladdu ka hortagtaa ilayada xukuumaddii talada. sababtoo ah maxay ahayday xusbiyadan mucaaradkuna waa inay mashquulka faraha badan le ka daayaan dalka iyo maxay ahayday iyo dowladda.
aanay la jirin argagixisada oo aanay dowladda maxay ahayday khalkhalinayn oo aanay doonahayn Somaliland inay maxay ahayd tashuush siyaasadeed ka dhex furaan si maxay ahayd al-shabaab waddanka u soo gasho si waddanka qaraxyo ku dhacaan si maxay ahayd dhibaatooyin fara badan Somaliland uga soo kordhaan maanta aamuska waa inay xisbiyada mucaaradka dadka sheeganaya ay ku dadaalaan hadday inuun u turayaan ama inuun ka naxayaan ama inuun maxay ahayday ummadda way ku indha bateen oo magaranaysaa way ku hadal bateen oo way ku magaranaysaa maxay buuq bateene waa inay dhawaaqa faraha badan leh yeeli maynaday ku soo celcelinayaan dhici maysaday ku soo celcelinayaan caynkaas socon waar baawarka dalka yaa leh xukunka ciddii haysaa dalka baawarka iska leedahay dalkan baawarka waxa lagu kala wareegay ahayday foosaa waxa weeyaan cod shacab baa lagu kala helaa maxay ahayday foodka iyo magaranaysaa maxay ahayday nasiibka haddii aanay ummadda Somaliland ini rabin codna aanay Somaliland shacabkeegu diyaarin ilaahayn cidna idii codaynayn maxaad isku dawaqanaysaan maad makhaayada iska furataan cidna dooran mayso waddani oo hal codna ma helayo cid cod ugu ridaysaa ma jirto sababta oo xisbiga waddani waxa ku jiraaba wax dalkan iyo dadkan anfici karaa maaha ummad waddankan iyo dalkan u shaqayn kartaaba waddani kuma jirto waxa ku jiraaba waa wax xoolo ummadeed xaday waxa weeyaan wax wasaarada dhacay waxa weeyaan wax wadooyin cunay waxa weeyaan wax mushaar ciidan cunay waxa weeyaan wax qamadi meel taalay oo bangaranaysa maxay ahayday masaakiin lagu caawinayay cunay waxa weeyaan wax bayhoofkii oo dhan baa waddan iskugu tegay marka dalku ma bayhoof buu dooranaya waddanka Somaliland ma bayhoof baa gacanta loo gelinaya ma gaajo qalashay baa gacanta loo gelinaya dalku wuxuu rabaa dad dhergayn codka magaranaysa shacabku inay dad dhergay doortaan bay rabaan oo gaajada ka caagay bay rabaan shacabku inay doortaan sababtoo ah ninka dhergay uu haystaa xoolahaaga iyo xoolaha ummadaba uu nabad gelinaya oo maxay hayday dhankii horumarku u kacaya marka waxa weeyaan oo aanu leenay oo aanu runta u sheegaynaa waar ilmaadee rayaal cidna cod ini siin mayso malaha shaydaan baa daasada inii tumay malaha ibliis baa cod aydaan filanahayn iniigu ballan qaaday ee laakiinse wax allaale iyo wax Somaliland aad ka helaysaan foos iyo cod iyo magaranaysaa maxay taageero ma jirto qiimaha iyo wixii aad waddankan ka mudnaydeenna waa taad dhiigii dhalinyarada ku loo faraysiin ninka ku yiri maxay ahayday ciidamada lagu seexdo ee lagu soo tooso ee lagu shaqaysto ee magaranaysaa maasha allaada taagan ee Somaliland oo dhan u mahadnaqayso ninka yiri rebesh la doono ninka yiri dagaal ula tag ninka yiri maxay bangal la dhac askariga ninka yiri maxay ahayday shiid askariga ninka yiri litir qarxaya ku tuur ninka yiri gaari qarxaya geli saldhigga booliska ninka yiri ciidamada isku gub ninka yiri magaranaysaa fulkaana ku tuur ninkaasi ma wanaag buu ka talinaya ummadda kaasoo kale inuu ilaahay talana ugu dhiibo gacanta maamul ummadeed u geliyana maaha ilaahay baanu ka magan galnay shayaadiinta iyo ibliiska iyo koocooyinka isku urursaday xisbiga waddani inaanay Somaliland marnaba gacanta aanay ku dhigin sababtoo ah qaabka wax loo maamulo ma yaqaanaan qaabka dal loo hogaamiyo ma yaqaan waxay yaqaanaan oo quriyaata qaabka jeeg foojara loo xado waxay yaqaanaan qaabka maxay ahayday mashruuc meel ka bilaabmaya hantiluunsi loogu sameeyo waxay yaqaanaan maxay ahayday oo xaqiiqa oo markhaati leh in waddadii ceerigaabo kharashkii loogu talagalay inuu xirsigaab maxay ahayday oo caddayn lahayd oo muuqaal lahayd oo marag lahayd xagguu lacagti geeyay xirsigaab haddaanu tuugahayn codka Somaliland ka doonayo muxuu isku nadiifin waayey muxuu oran waayey qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo hantidiinii cod baan inaga rabaayo waxaasaan deela qofku waa hadduu ilaahay garanayo diinta islaamka aaminsan yahay qof muslim oo diin lagu dhalay yahay oo aakhiro inay jirto uu ogsoon yahay oo in qabri la geynayo qofku ogyay oo in maxay ahayd cadaawul qabri jiro uu ogyay oo in magaranaysaa xisaabta ilaahay ka dambayso uu ogyay inuu ummadda yiraahdo isaamaxa
maxay ahayd waxaasaan dhacay waa ummad miyaanay bal qalbiga iyo maskaxda ummadda kusoo hor istaagaya oo cod kaga doonaya maalin walba tv-ga soo taaganya uu shir jaraayid qabanaya intay kuwa saxaafaduna mikrofoonada qaataan ay maxay ahayde mikrofoonada hoos dhigayaan ay moodayaan qof miisaanle inay waraysanayaan ay moodayaan qof muxtaram ninka wada xaday oo wado dhan oo gobolka sanaag loo sameynayay lacagtii loogu talagalay qurba jooga laga soo ururiyey ee qolqol jooga laga ururiyey ee 150 milyan ee dollar ahayd ee uu isagu furihii qasnadii lagu riday wahayay xaguu geeyey lacagta xaguu geeyey Somaliland wallahi dad badan baa fara badan baa ka soo bixeen oo hanti umadeed ku maqantay dawlad cadde ee ururadaas